Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaa idin haynaa warar muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Bradley Barcola kaas oo si weyn loola xiriirinayo kooxaha Arsenal iyo Liverpool iyadoo suuqa kala iibsiga xaggan uu sii kululaanayo. Warar cusub oo kasoo baxaya qof si dhow ula hadlay ciyaaryahanka ayaa bixiyay sawir cad oo ku saabsan halka uu mustaqbalkiisa u jihaysan karo. Liverpool oo Arsenal oo lala xiriirinayo weeraryahanka Bradley Barcola ayaan u muuqan inuu ku degdegayo ka tagista kooxda Paris Saint-Germain sida uu sheegay tababare hore. Ciyaaryahanka xulka Faransiiska ayaa waayadii dambe hoos u dhacay sumcadiisa marka loo eego ciyaartoyda Desire Doué, Kvaratskhelia iyo Ousmane Dembele ee ka ciyaara safka hore ee PSG, isagoo Barcola aan safka hore ku bilaaban afartii kulan ee ugu dambeysay ee kooxda ka ciyaartay Champions League xilli ciyaareedka 2025-26. Si kastaba ha ahaatee, Barcola wuxuu weli soo bandhigay tirooyin wanaagsan isagoo ku lugaysa 20 gool iyo caawin isugu jira dhammaan tartamada xilli ciyaareedka 2025-26. Taas ayaa keentay in kooxo badan oo Yurub ah ay xiiseeyaan saxiixiisa, gaar ahaan Arsenal iyo Liverpool. Arsenal ayaa la rumaysan yahay inay raadinayso xulashooyin cusub oo dhinaca garabka bidixda ah, halka Liverpool ay sidoo kale eegayso sidii ay sii xoojin lahayd weerarkeeda. Sidaas darteed, magaca Bradley Barcola ayaa si joogto ah uga dhex muuqday wararka suuqa kala iibsiga. Si kastaba ha ahaatee, Leroy oo ah tababare hore oo caan ah kana soo shaqeeyay xulal badan oo Afrikaan ah sida Cameroon, Senegal iyo Ghana, ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in Bradley Barcola uu doonayo inuu ka tago PSG. Leroy oo shaaca ka qaaday inuu la hadlay ciyaaryahanka isla markaana uusan ka dareemin wax muujinaya inuu raadinayo koox cusub. Uma maleynayo in Bradley Barcola uu doonayo inuu baxo, wax yar ayaan la hadlay, mana bixinayo aragti taasi muujinaysa, ayuu yiri tababaraha 28 jirka ah. Hadalkan ayaa muhiim u ah Arsenal iyo Liverpool maadaama uu ka soo baxay qof si dhow ula hadlay ciyaaryahanka. Inkastoo wararka suuqa kala iibsiga ay sii xoogeysanayaan, haddana waxaa muuqata in Bradley Barcola uusan hadda qorsheyneynin inuu ka tago kooxda reer Paris. Barcola heshiiskiisa PSG waxaa ugu harsan 2 sano, kooxda Faransiiska ayaana ku soo iibsatay qiyaastii 38 milyan marka ay kasoo qaadatay Lyon sanadka 2023. Tan iyo markaas wuxuu noqday ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda, isagoo diiwaangeliyay 39 gool isla markaana bixiyay 37 caawin 152 kulan oo uu saftay dhammaan tartamada. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in PSG aysan doonayn inay si fudud ku fasaxdo ciyaaryahankeeda haddii ay jirto koox doonaysa saxiixiisa xagaagan. Waxaa la rumaysan yahay in PSG ay dalban doonto lacag gaaraysa ku dhawaad 86 milyan. Weli waxaa jira suurtagalnimada in Barcola loo bandhigo heshiis cusub si mustaqbalkiisa ugu xiro kooxda. Inkastoo aysan jirin horumar weyn oo laga gaaray wadahadallada, PSG waxay weli rajeynayaan inay sii haysto xiddiga reer Faransa. Marka loo eego xaaladda hadda jirta, Arsenal iyo Liverpool waxay wajahayaan caqabado adag haddii ay doonayaan inay la soo saxiixdaan Bradley Barcola. Ciyaaryahanka laftiisa uma muuqdo mid doonaya bixitaan, halka PSG aysan diyaar u ahayn inay si sahlan ku iibiso. Sidaas darteed, inkastoo magaca Bradley Barcola weli uu ka dhex muuqanayo wararka suuqa kala iibsiga, dhammaan calaamadaha hadda jira waxay tilmaamayaan in xiddiga reer Faransa uu sii joogi karo Paris Saint-Germain xilli ciyaareedka soo socda. Haddaba adigu maxay kula tahay mustaqbalka Bradley Barcola? Ma sii joogi doonaa PSG mise ugu dambeyn wuxuu wareegi doonaa Arsenal iyo Liverpool? Fikirkaaga noogu reeb qaybta faallooyinka. Ha ilowin inaad like saarto muuqaalka, share gareyso, sidoo kalena subscribe ku dhufato kanaalka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta.